haddaan macalinka u soo laabto horta macalinka magaciisa waa isla naqaanaa macalin Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud hooyadiisna waa Bulla Cawaale Cosoble Mucallin Bulla Cawaale Cosoble Mucallin halkaan bay ku xawaalan tahay qowrahan dhuray ku xawaalan tahay ayadiisa aabihiis dhashay waxaa la oran jiray Iido Diblaawe Mucallim waa isku macallin gabar yeedeed baa ka dhalay macallinkii aabihiis ina Cawaale Cosoble Mucallin iyo ina Diblaawe Mucallin ayadiis hooyadii dhashay waxaa la oran jiray Mayran Weliye Jimcaale haddaan wax yar xoogaa sii iftiimiyo labada hooyo oo midna macalinka dhashay midna aabihii dhashay oo labada macalinka ku abtirsadeen macalinkaasi waa macalinka mursadaha wey Sheekh Maxamed kulan qase ragaas ay bay qaraabo ahaayeen oo kuna cusub asna Mayran tuna waa Sacad oo hadii la koro yahay ina Weliye Jimcaale oo hooyis bay dhashay halka haddaan ka soo gudbo macalimka waa isla garanaynaa inuu ku dhashay gobolka Mudug wuxuu quraanka ku bartay gobolka Mudug tacliimta qaybteeda koowaad wuxuu ku qaatay gobolka Mudug haddana xamar buu wareegay xamar ayuu wax badan ku soo bartay ka bacdina wuu soo laabtay halkan ayuu markaasi haddana tacliimtii ka sii waday iyo inuu dadka wax baro asna wax barto inta haddaan jumleeyo macalimka koowaad oo quraanka u dhigay waxaa la yiraahdaa macalin Salaad Guuleed wuxuu ku xawaalan yahay gaalkacyo waa macruuf macalin Salaad Guuleed quraanka qayb uu dhigay laba subac qadarkooda oo kale taa ayuu u dhigay dugsigaas macalin Salaad Guuleed oo macalinku quraanka qaybtooda ka bartay waxa gacanta ku hayay oo aasaasay oo macalin guud ka ahaa Sheekh Maxamed Yare Cali Cabdi saas markii macalinku wuxuu ku tirin jiray macallimiintiisa Sheekh Maxamed Yare haddana macalinku macallin waxa jiray wax yar oo suurad iyo camal ah uu ka bartay oo luxjiintii xogaa uu macallin Axmed u tagin macalinkaas anu magaciisa ma hayo adigu suurad iyo wax la mid ah ka bartay waa macallin saddexaad dhexgal u ahaa inuu shaqaalahana waa ka baqaya waa sal culimada weydiin doonaa macalinka rasmiga oo quraanka si fiican u baray oo quraanka badankiisa oo ka bartay oo waxa la yiraahdaa macallin Axmed Siyaad waa isla garanayna macallin Axmed Siyaad waa macalinka wargalaan ku siyaan wargal ku xawaalan معلم أحمد سياد أصغر الله معلم بولها مد واحد ليلة معلم علي حسن نالي رأي لوي علي حسن نالي وكو حوالي هي قلنصور هرتي شعار اسمه تربوها شيخ يجيب لي ما أنت باورتو أفسد يا باورتو الراعي كاسون باورس كراعي باور كيو كدعي وادين تركت لو حوالي قصيدة مدد يا أولياء الله مرك أبيض وكدر شعل فوحله الله كرهال نقده وكيري مدد أخيار قلنصورا فمنهم شيخنا نور كذاك أستاذنا خيرا وحولت كذا مع على حسن الله يوي إلا موتها شعل فوحله قرآن كوحة أقول لي مع أحمد شيخ عبدي مع القدر كحوالا مع أحمد كاسر مع أحمد سياد بقول لي ومع قادر مع أحمد شيخ عبدي اسمه معلم بها مرك حاجة معلماتها كل ما أحد وجلينا مع أحمد نوح أقول لي مع ناس كمل مع العالي حسن علي ساس مرك أقول لي كذاك أستاذنا خيرا مثل خيرك نو معلمك معلم كيسكرنا واحد الأورنجري معلم يوسف محمود عصبلة العلي الأبقالي المقدشي وحوها معلم يوسف محمود عصبلة في المقدشات بوها مع الأبقالي علي مع غادي حتى وي كل من مركب معلم محمد علي دونه وانطلق القرآن كله مي وحاجة تعليمته هذه قلنا لا أو معلم والله كومي
macallin yuusuf macallin yuusufkaas wuxuu macallinkuna oran jiray asna waxaa macallin u sii ah macallin yuusufka xawar weeye macallin yuusuf dhaga jarco sheekh la yidhaahdo macallin yuusuf dhaga jarco oo weerdhaca oo ku xawaalan meel la yidhaahdo galmo oo waqooyigan qaydare balli ku dhow oo galmo la yidhaahdo ayuu ku xawaalan yahay waa qabri macruufa oo la yaqaano dahralaho oo la siyaarto macallin yuusuf maxamuud cusale buu macallin u sii ahaa horta macallinka anaga macallimiinta inta hadda aan markaan soo gaartay waa intaas wixii kalena midha waa la heli doonaa haddaan xagga mashaayikhda u laabto mashaayikhda macallimka shiikhiisa koowaad oo safiinaha u bilaabay wuxuu ahaa shaykhulcaam shaacir cilmi yare radia allahu tacaala canhum ajmaciina safiinaha waxaa u bilaabay shaacir cilmi yare xilliga safiinaha u bilaabahayo shaacir satar waa noolya allahu calayh weliba macallinku wuxuuna oran jiray markaan dugsileyda ahayn waxaa naloo soo diri jiray oo shaacirta naloo soo diri jiray sheekh maxamed yare cali cabdi iyo shaacir cilmi yare oo dhalinyaro ah si ay dadka u wacdiyaan oo dadka ay ugu sheegaan axkaamta marka ayaa la joogo nimankaas naloo soo diri jiray marka safiinaha iyo qaasimiga labadaa markuu macallinku akhristay ayuu xamar aaday xamar markuu tegey halkaas ayuu rag badan kula kulmay oo wax badan oo culumma u faa'iidaystay culumta u faa'iidaystay waxaa ka mid ah culumta carabiyada wuxuu ka akhristay sheekh cali saciid aw maxamed kan wargal ku xawaalan qaasim ibnu daahir aw maxamed iyo waa la garanaya nin loo jeestay cali saciid ninkaas ayuu ka akhristay carabiyada wuxuu kaloo shiikhu la kulmay sheekh abubakar sheekh muxiidiin macallin mukaram sheekh abubakar sheekh muxiidiin macallin mukaram ayuu la kulmay oo asaguna culumu ka faa'iidaystay wuxuu kaloo la kulmay sheekh moxamed faqi yuusuf oo asaguna waxbuu ka faa'iidaystay wuxuu kaloo la kulmay oo wax ka faa'iidaystay culumta tajwiidka macallin liyaa macallin cabdille al-odeejeni qabiilkaas macallin ama cabdille odhan jiray ayuu cilmiga tajwiidka iyo qur'aanka itqaankiisa uu ka faa'iidaystay waxaa kaloo macallinku uu culumta waxaan kasoo barta ka mid aha tafsiirka qur-aanka isagoo macallinku 20kii aan dhab u sigin ayuu culum badan soo akhristay dibna wuu usoo laabtay waxaan jeclahay ama 20kii ama 19 meelahaas in macallinkaas u qiyaasi jiray markuu soo laabtay marka ayuu macallinku mid ku soo laabtay marka ayuu wuxuu ku taxmay madrasadii shaykhulcaam ayuu ku taxmay wuxuu kaloo bilaabay inuu qur-aanka uu dugsiyaal asaaso oo qur-aanka u wado dugsigii ugu horeeyey macallimku markuu asaasay markii aan qulaasaynay oo fiirinay 79 ama 78 mid dhiman ama 78 meelahaas ayay qiyaastii noqotay inta macallinku uu dugsiga qur-aanka u waday saa ogtii macallin dalkii dabadaba hadda labadaba qur-aanka uu ka fidiyey intuu xataa bannaanka jiray oo afrikaankan u dhex jiray dhinacan dugsiga uu waday halkaana waa ku waday marka macallinku intuu macallimka ahaa oo qur-aanka uu waday waxaan 80 ku dhow ayay qiyaastii noqotay intaas ayuu macallinku juhdi wuxuu ku bixinayay in qur-aanka uu gudbiyo oo dadku uu gaaro kitaabka ilaahay asagoo weliba gudbinaya si itqaan ah oo garano macallinku mujawid u ahaa ayuu saa u gudbinayay ayaa lagu xusuusta waxaa ka mid ah macallimka dugsidiisu ma lahayn dow iyo bil kol aan markaa soo gaarnay dow iyo bil
iyo wax tadawucska ah wax lagu qaadi jiray ma jirin fi sabiilillah quraanka bisbaal soo gudbin jiray hadda waana garanaysaa oo mirahaani ma soo baxeen haddii dila kuuran yahay ay siyaaro kale ku jiraan waxay ahaayeen wax ilaahay ku jeeda oo ilaahay dartii ah dad badan oo akhyaar ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala akaabirtiisa ka mid ah oo aclaam ah oo gobolka mudug jooga ayaa ka mid ah dadka madrasada ka farcamay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nuurka ka siiyey oo ayaguna sii nuuriyey madaaris badan iyo madaaris badan iyo madaaris badan haddaan hal iyo laba ka soo qabto dadka waxaa ka mid ah macalinkeena macalin xasan maxamed maxamuud oo macalinka walaalkii ah waan ognahay inta ka farcantay in la oran karo macalinka u dhiganta ama ka agdhow ay ka farcantay waxaa ka mid ah sheekheena sheekh cabdikariin diirshe waxaa ka mid ah macalin maxamed jimcaale waxaa ka mid a haddee kow iyo laba dacaa tiriyo waa wax badan ma sii tirin karo oo waxaa ka mid a macalin siciid sheikhulcaam macalin siciid sheekh cali cilmi yare allah ka raali noqday oo isagana aclaam waaweyn iyo akaabir ilaahay ka farciyey inta kaliya caawa xafada halkan joogta baa waxay leeyihiin wax tiro badan sheekhan hadda wacdinayay sheekh cabdullaahi calayr oo ka mid yahay madaarisaas khiyaarta ilaahay ka farcamay waxaa ka mid sheekhana sheekh cabdiyare maxamuud jimcaale waxaa ka mid raggaan reer jimcaale ah oo haddii la kuuran yahay waxaa ka mid a macalin cabdi rooble macalin ali xaashi ile macalin siciid aan shirwac sheekh axmed nuur waryahan tirin karaa khiyaar badan oo nujuumta gobolkaana ayaa ilaahay subxana wa tacaala ka farciyey sheekheena macalin xaadi jimcaalala waa garanaysaan macalin axmed sharad macalin axmed sheekh yuusuf macalin maxamed sheekh cabdikariin macalin madoobe ilaahay axbaabtiis oo hadda aan carab ku soo koobi karin oo qaarna fadhiyo in badan aan magacda ku dhawaaqin baa fadhida in badanna waa way maqan yihiin waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin madaaristii wixii ka soo baxa madarisadii macalinka ilaahay ku karaabeeyey oo caawi aan is leenahay waxyaalaha u baxsanahay ka mid tahay macalimka anugu taariikh weyn kama hayo in sha allahu tacaala laakiin waanu soo xusi doonaa waxyaalaha macalinka waxaa ka mid ah xilligii dowladdii jaa'irka ay jirtay waxaa lagu xusuustaa hijro dheer oo aada u fogaan badan ayuu galay hijradaas mar baan ka qoray laakiin nasiib daro waa iga lunta waraaqadii laakiin mar baan ka qoray maalintuu golol ka tegey iyo maalintuu meesha ilaahay ku guulay u geeyey mar baan ka diyaariyey been mooye hadda waxaan ka sheegi karaa lama arko laakiin alcumuum waxay tahay markii dowladdii jaa'irka ay tahay dowladdiina isku dhaceen waxyaalihii markii ay ayadii qur-aanka la bineey culimmadii la laayo talada caddaatay inay asaga gaalkacay raggii joogay oo madaxda ay isku dhaceen inuu markaa golol u cararay oo ayaan meelaha wareegahayey kabacdi wuxuu yidhi shiikhaan u imid waxaan ihi shiikh ii ducee meeshaan aadi lahaana waa kaala tashanhaya markaa waxay gu jirto inaan jabuuti aado markaa wuxuu yidhi shiikhu faatixana waa ku marhayaa jabuutina adee nairobi aado bas waa soo laabtay si dhuumasho ah baa gax ku soo galay waxaan ka baxay uu yidhi gaalkacyo
xaafadda waxa uu tagay 20 shilin ilaa xaar baan ka sii baxay meelaha dhaxdhi baan baa u qabsaday intii uu Kenya uu ku sii socday waxa ka mid yiri saadka ay go'ay saacadaydii baan gatay adigu ugu dambaystii dhibaato badan iyo juhdi badan iyo dhib badan Nairobi baan tagay ilaa uu qora meel wasi baxay tasaaniya tagay halkaas xajka ka sii aaday oo siyaarada Ilaahay ugu fuudeeyay xajka markii aan tagay ayaa meel Rabidatul Islaam waxaan qortay waraaqad nin muhaajira oo dal culimada lagu laayay ka soo haajiray oo baxsada oo miskiina baan qortay meeshii waa ay yareen way quraanka igu imtixaaneen tafsiirka waa igu imtixaaneen markaas waxa ay qoreen bi mufassir abi masaajid kana fadhinaysa tafsiirka ka akhri bas waa bil waa ku siinayna waxa ay wardad baan ka soo kacay dadkay ma leey keeni kara maya waxa ay bal soo fakaraya waaska laabtay dad ba waxay sheegay waxa la meesha roon oo haday ku gacan qabtaan wax xoogaa rajada Madiina jirta Madiina tag way baasboor ma haysto oo qofkii loo soo lagu qabto waa xarig bas ilaa iska tala saartay nin baan leeyahay shaayir uu yiri Madiina igee baasboor ma haysto ogow waxa kale lacag waqti ana ku wareejinaya keen lacagta meeshii la gali lahaa ka bixina marka marano baana la qabtay waa la soo dajiyay waxa la yiri haati jawaas markaas waxa uu yiri alaysa allah yaqul sawaa'u lil aakifu fihi wal badi soo ilaahay ma oran beedkan waa ku sinan yihiin ninka kunigi iyo midka soo galay markaas uu yahay wax yaaranaya keen waraaqada jawaaska mar uu xiri rabo baakii darawalka inta soo degay waa adeeg ilaahay ma ogtahay buu yiri wariya ninka anigu aan wato maxaa ku dhajiyay ana ibaad gooyo Soomaa way arka way helaysaa haday ibaad gooyso aniga kala waxa sidii ninku reeb boqorka ku midka aan la socda kaas yiri ninka meesha marin oo xagaas marin iga wada ninka agudubnii uu laba control baa Madiina xigta midna kala bar ku yaala midna meesha la gal ku yaala marka wixii daroos la hadlayno quraankaas wuxuu yiri quraankaas baa shuuhaya 6 saac waxa ku aadnu yiri meeshii controlkii dhexe mas'uuliyadda Ilaahay cirid soo dhajiyay oo ciridii nabi Ilaahay ka dhigay bayiraan buu yiri soo gudba gacanta noo hatiye sawa dhaaf si mid baaray quraanka oo saarsta Ilaahay iska bariyay waxa ku aadnu maqribkii waa meesha Madiina laga galo control kale markaas Ilaahay wuxuu soo roob waxaan idin meesha cilaaba oo wax jooga laaray agudnay markaan gudubno magaalada aan galnay dad baan helay qaraab oo aqooniya bas meesha waa la ii sheegay meesha wuxuu yiri waxa madax ka ah Ibn Baas ka maqashada meelaha ku maartay ay ku xaraadaan meelaha ninkaas meesha madaxooyi markaasaan waxa yiri wax kasta ha ahaayee dad baan ka soo kacsan nafaysane ninka la eegay qofka taxiim shahaado ma wata wax eegay waa waayo maanta waxa sameey waraaqad baa ay qoran oo cabashada iyo waxay ku qoran yihiin waxaan fariisiyo albaabka way duurku masaaka u soo baxa waan dhalaya markuu masaaka u soo baxay baa gacanta qabtay ay ruuxi miskiina baan ahay taas waraaqad baan daan ku hoostiisa waa ay suurtagal weeyday masaaka ma ka soo laabtay inuu saari bartida ku tukaday saaki ma aadin
markii uu soo galay baa gacanta ku dhowey bas waa raacay waraaqadii oo dhiibay waraaqada qoran bay culimadii la laayay iyo sifiil loo laayay iyo waxay jawaabeen iyo ayahay daliilsadeen iyo wixii dhawa ku qoran bay markaas ay ma ku akhriya markaas mada Abdul Hakam nimbu yartu wax akhriya wiilka waa akhriyay intuu akhrinayay buu barartu yiri maanta kor u maqal ninkaas magaciisa marka wuxuu weydiiyay xagee ku nooshahay xagee xayrida qaraan la soo degay xagaara bas wuxuu yiri bal ana ku soo ana khabar ma yeelaysa asax madarasa ka madarasooyinka iyo quraanka ka bilaaway halkaas wuxuu yiri aan isoo diri jireen marka wuxuu yiri marka meelaha imid kuwa dulmiyay waxay ninka aad taageeraysid inuu qabuuriyo waa nin qabuur caawda oo hadii la kula ma ahan ahlu tawxiid ma ahan kaas marka halkaas aan isku weynay haddana waxa taageeri jiray Liibiya oo madaaris hoos tagta meesha aan ka sameeyay adiga dhibkii halkaas waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaan Nairobi mid oo aan fadhi ku yeeshay baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay iga dulqaaday maxan badan oo tiro badan oo ay ka xusuusanahay waxyaalo badan ay ka mid tahay mar waxa jirtay macalinka oo intaas inta diyaar la haday markii dagaalka Itoobiya jiray ay Itoobiya kula degtay markaas dareemay ninka Soomaaliyeed diyaaradii ka reebeen wuxuu yiri baasaboorka aan watay oo Kenyaanka mid ay qaatay Kenya ay qaatay qashay ku tuureen markay Carabiga ku hadlay bas وإن الصومالي صدران ولا بورن أي بارك موت الصومالي ما خذوا يجري عربا كل الله قالوا لا أعرف لغته مركز تكون هنا حتى تموت هل كانت جوز إلا كلمة أنا الصومالي موت بيكرتين يجري معلم كلها كرال لغة من با أنت إيمي oo ila hawday oo meelaha uu soo wareegay buuraaqadii soo helay martani taadi ma ahay oo markaas xuquuqda helay oo nin baasaboor ku soo galay oo baasaboor Kenyaana xuquuqda Kenyaha markaas sii daayay marka ahibati filaahi raaliga ahaada insha Allah taala ila adu ka dhigo waan soo khulaasaynayna waan soo diyaarinaynaa hadii Ilaahay ayadoo qoran baa la heli doonaa hadii Ilaahay ka raali noqdo waana maasantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh